عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وعبد الرحمن وكالة صاحبي ودنك ترملك. تفضل أخي بارك الله فيك. شيخ waxaan hawada dhalinyaro waxa igu mehersanad gabar wadanka joogta واقر kabacdi aniga inkastoo qaxootinimo isku dhiibaan shaqeyn jirin iskuuleeyay diraan waxna aasa hadana gabadha uma xumayn oo wixii aan awood iyada iyo waalidkeed baan u dirjay واقر taas ay tahay gabadhii nin kale iska jeclaatay nin kale iska kansay ninkii baa guur soo bandhigay واقر ومو شيء la qabo gabadha isagii baa malaha khaladkeedii wax barbaaray isagii baa ani sabab gabadha maxay ka dhaxay guur واقر gabadhaas xaaskaygi weeye baan ku dhahay هاي okay call budibna aniga iyadii ina soo wada geliyay ninkan maxay ka dhaxeeya iyadii marka isma ka sheeg nabadeedna kala qarinays هاي gabadhii saa markay ahayd gabadha waxay aniga fur ninkan aan aniga guursanaa asagina uu ka tagay anigina furay dhahday sidii baan ku furay sanadka bacdi ay soo wacday meherkaygaan rabaa meher gabadhaana ma taaban jirkeeda oo waan smeertinay beseda meher ma laygu yeelanaa mise ma laygu yeelanaa sheekh نصف مهر lagu leeyahay hadii aad arkin نصف مهر نص مهر مهرka nuskiisa lagu leeyahay laakiin waxa ku mudneed inaad tiraahdo hadaa furin rabtid adiga furinka raba adiga ila furinka duu dhinaca ka yimaado meherkeeda waa leedahay meherkana nus ay leedahay maadaama as arkin oo wiliga alla kulmo meher leenin siin qabtay فنصف ما فرضتم آية القرآن كاشيكتي ومن قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم ونص أي ليلة لكن وحين هدي أتكو حر ليلة فرين كقضاء أما كوبد مهر كوا جار وما دام يدين على كرته مركا نص مهر كذا سي إن شاء الله حقي أولاده شيخ وان كده هاي يعني ما ويجي مهر بعد حين يالي هنتي بعد حين تعرف حكي لنا ما كده مكرنسا هاي هنتي لا صدق كل علوسه هنتي مرة بانو ورقة دي كليسي فسح اللي قاعد كده بس هذا تاس مركات أو هالشيء أو أردا شيء حق نقطه وحملها مركز ويبدلت ما سند لكن قبلها وحنا شيء يا مسألة كلي قبل داس كله عدد إنك حكم كيس والله شيء لكن قبل داس إلهي كبغض وحلا قبل كلي إنه يكون عن أو مسألة ده قبر نين مهرسن إن نين كلي شو كان سكرين هذا شو كان ستو حتى كل بلانتو نينك هو رأس كسو فريا هذه مركان نينك كسو فرا كو جورسنا دو كل بلانتو نينك هو رمكو حرمايو هذا نفتي جد نينك اسمه حرمايو محيي الحديث قاعدة waxay ahayd man istacjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi macnaha gabadhaas iyadoo ninku jirto ama xataa iyadoo ciddo ku jirto haday nin shukaansato ninkay shukaansato ma geeyo kaas waxa leeyahay waa laga mamnuucaya ninka leey guursanaysa marka ilaahay ka baqa gabdhaha aan leenahay adduunyada waa laga tagayay aakhiradiina ku doorsanina insha Allah dhinaca kale halow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وسولي حالتك كورم. الحمد لله أخي. walaal waxaan kaala soo hadlayaa degmada Kaaraan ee Soomaaliya واقرت gobolka Banaadir واقرت walaalo wax baa jaahil ka ah in xaramna inaad na deeqsiisid su'aasha ku weydiinayo waxay tahay markii wax la xukumaayo xaakimada Soomaaliyeed waxay dhahaan xeerka Soomaaliyeed xafa na kadibna aayada saas ay leeyihiin diinta maxay ka qabtaa taas نعم أصلك آية waxaan kale naadal dhahay waa wax lagu heshiis kaliya waa heshiis gudaheed waay oo magacyo loo yeeshay laakiin asalka waxa aayad in lagu xukumo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu adoonsaday inaan quraanka ilaahay kitaabka ilaahay wax ku xukuno marka meeshay ay ka dhahayaan xaada ay soo hormarnaa in aayad soo hormariyaan ee ka bacd xaada waxay isku heshiin gadaal ka dhiganaa fiican laakiin wax lagu heshiiyo hadduu islaamka ka hormaanin dhib ma laha insha Allah waa maasanta waxa kale ku weydiin lahaa hadda jaanis kale siinaysid sheekh Usuli ay fadlan waxa arkaysaa culimo joogo wadanka Kenya oo lagu dhahayo dastuurka Soomaaliyeed wuxuu khilaafaya shariicada islaamka sidaas darteed aykan waxay haystaan sharci Kenyaati ay haystaan dastuuriga inuu meesha ku joogaan dadkaas maxaa u soo jeedila culimadaas oo kale نعم مسألة في اجتهاد كعلماء ninka si uu arki kara dhib ma laha laakiin anaga markaas waxaan dhahnaa dastuurku waxa asal u ah in quraanka ka horma heshiis kasta la galo waxa asal ah nabiga kaleey salaatu salaam wasiiqo madiina ku xugmayo asoo quraan aayada quraanku soo dagayo ayuu warqad la kala qorto heshiis ah oo xeer ayuu dadka madiina degan oo muslimiinta iyo yahuud iyo qabaa'ilku kale ayuu yeelay balse islaamka xeerkii u yaalay oo quraanka carabta oo hadii quraanka ay waafaqin ma diidin sidii xilf fuduul oo kale lahaayeen oo nabiga kaleey salaatu salaam u dhahay hadii aniga leegu yeer lahayn waa tagi laha bacd islaam marka wixii oo islaamka ka horima qaacidada asalka waxa wax kasto oo xeer ah waxa loo bandhigayaa diinta meeda ka hormaanaysa ma jira maya waa la qaadan kara dhib ma laha oo waxyaabaha umada in way
dhaqanka u leeyihiin waa dadka isku waafaqeen marka laakiin waa laga yaabaa culamo ra'yi kale leh marka ra'yigooda qasab ma inaa qaadatid adigoo la dagaalin oo xumaan u qaadin ka tag ra'yigooda ra'yiga kala qaado cid kugu qasbays mala ra'yigooda dhinaca kale halow halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheeko waxaan ku weydiinayaa laba su-aalo ma garan waa garta tan koowaad tan koowaad waxa waaye tii hadda aa ka hadlayso waa garta mawluuceeda ma garan hay midda labaadna mid adigu kuleeyi marka tee kuusoo hormarya middan oo mid daarti horumari adii taarikh middan mid kale oo aan xoogaa baryahan dhan kula raadinay taasaan bal aan ku Haye. sheega waxaa jira wadamadan yurubtan joogaa ma garat marka gabaraan qaraabanahaa jirto ma garatay waa garta marka waxay xiriir wada leeyihin nin caddaan waa garta ninkii caddaankaana kulley aniga waa la kulmo maray i tustay ma garatay waa garta waxaan ku dhahay ninkan diinta islaamka ha soo galo ma garatay haye marka xoogaa ninkii nin aaminsan ma ahan ilaahay runtii oo hata si kasta usha gaalada qaar kitaabiyaa jiro oo wax fahmaya ma garatay waa garta marka gabadhin anigu waa la teliyo waxaan ku dhaha arrintan aniga kulli hadda cilmi saasan uma leeya qof wadaadan kula soo xiriirina waa garta okay طيب marka inaan taleefonkaaga qaadkaa oo lagaa helo labadan telefoon miduu yahay ma aqaan aniga kulli midaan soo barweeyey oo dhowr jeer adiga maxaa fiber ma ka hadlaysa hadda faybaran ka hadda lagu soo qoraa meesha lagu soo qoraa insha Allah bes insha allah marka taa arrintaasna hataa islaan hooyada ila joogto marka ayada hataa inay ila ogaataan raba markaan kusoo طيب ان شاء الله laakiin dadka ka faa'iideystaan si caam ahaan ma gabar muslim nin gaal ma geeyo taas waa inay gabdhaha ogaadaan ila wal abd mu'min ilahi subhanahu wa ta'ala khayr mushrik waliin adoon mu'mina ayaa ka khayr badan nin mushrik ah ولذلك ولا تنكح المشركين إلهي سبحانه وتعالى ونو شيغي قبلها إن قال لو نكاح معها waxyaabahaas dhanaa jira laakiin telefonka la sii doona qadka telefonka halow halow هلا ha halow سؤال ويدي لها هاي تفضل ويدي يا ويدي لكن قفك ولا هلا سويدي ما تيفيك iska daa telefonka igala hadal telefonka igala hadal ها تلفونك على هلا ha tv-ga dhegeysanaysaa ها من مقشان waa ku maqlaa ha ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها وحكوا يدي لها ها خوف عدو بينكو ها لكن والعقل كده حلو telefonka igala hadal tv-ga ha daawanin ها حتى مقشان waa ku maqlaa خوف عدو بينكو لكن العقل كده حلو ha إن العقل كده وصف كوب حديث خوف كاس دم ما أصعنا qofka dhaxlay u soconaa mar haddii dhaxalka la dhaxlo asaga wax kagama jiro لكن خوف كاس عدو بينتي شقام كلها سامع كلية تبي أنا العقل أنا أروح أقسم خوف كيد أنت أكون جارح ما أنت may may waxba kagama jiro mar haddii maalihii ninka dhintay maalkiisu dadka dhaxalka la haddii loo qaybiyo nin kasta wuxuu maalkiisa ku samaysta asaa dembigeeda iskale لكن أصير شقام كلها wax asaga shaqo male walaa tazru waasiratun wisra ukhraa marka adiga marka uu cabsanaysa asaga adiga maa naftaas ku cabsatid qofka dembiga galaya dhahay qof dhinta ama wax ka gaaraan tiisi meel ma ku hubiyey adiga taada u cabso naftaada owla ah kow qofkaas waa dhintay marka xoolihii dhaxalka a ku hesha xaaraan ha u isticmaalin ilahi subxana wa tacaala adiga u cabso naftaada intaa asaga u cabso lahayd nacam dhinaca kale halow halow qofkaas waxaan filayaa tv-ga u dhegeysanaya asagana halow 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 qofkaas asagana tv-ga u dhegeysanayaan filayaa dhinaca kale halow السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ waxaan u baahanahay su'aal ah product lagu soo sameeyo China ma lagu qori karaa made in wadan kale oo aan isaga ahayn ma lagu qori karaa maya khiyaano wey tadliis aliira ma banaan shariica islaamka ma banaano qofka muslimka ka baqo wuxuu yahay inuu ku sheego nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku nagu sheegay wuxuu ku leeyahay albaayacani bil khayr wuxuu yidhi in bayana
hadday caddeeyaan ay meeshay ka keeneen iyo waxay kasoo gateen burik lahum beecahum beecooda waa loo barakaynaya marka haddaad bayeen meesha ka keentay xumaanta ku jirta aa sheegin meesha lagu soo suubay haddaa sheegin wuxuu yihi ilahay wuxuu yihi ma u barakaynaya xataa haddaa gadid makuu barakayna marka ma banaana khiyaanada iyo isdabamariska diinta ma ogola halo ha waa ku maqlaa sheekh usuuli su-aashaan ku weydiinayay si fiican maanan maqal waxay ahayd su-aashu alaab lagu sameeyey china waddan kale lagu soo sameeyey maku qori karaa maya waan sheegnay waa tadliis waa khayaanaan dhahnay nabiga alayhi salatu salam xadiiskii aan sheegnay oo ah qofka labada baac waxaa la rabaa wax kala gadanaya inay caddeeyaan haddaad caddaynin in bayana xadiiska lafdigaasa ku jira waa inaa caddaysid meesha ka keentay ceebtuu leeyahay xumaan hadday ku jirto waxaa gadaysid waxaa inaa sheegay haddaad dadka u qarisid beecaas waa beec qarar aa la yidhaha ma banaano diintan ma qabto insha allah nacam dhinaca kale halo ha السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال أكو ربينا أكو يديو أو محل بدنا يدد قبلها سومالي ذي سمعين. شيخ سؤال شو حواي كورن بدنا حد قبلها بدنا أو كرو دمك أو كرو لوفو حسمين قف أو حكيمانا ودن كلا يوكي وكلا وح قبلها وأنت ودمدان كلا وح ديجنا نروس أو ببين وحاس markay video waxa sida ay kor wadamada kale ay ku aadaan markay diinta waxaas maxay ka qabtaa sheekho akhi aroos ma aha welcome to Allah waa anaga qabnay ingiriiski ku badan tahay dadka welcome to London halkan ku badan tahay wax dhaqan way laakiin anaga kama hadlayno qof waa la soo dhaweey karaa qof maxabo loo qabo oo kalsooni lagu soo dhaweey la baas dhib ma laha laakiin mushkiladda waxay ka taagan tahay muusigadaas iyo niikada iyo cayaarahaas sheekh waxa way su'aasheeda ku dhahay arooska gabadhiisa kor wadanka loo aadi kaliya arooska labadooda wax kama dhaxay xiriiri wax dhan kama dhaxay sida wadan kale ku aadi kaliya aroos been oo sameeyna ma banaano taas ma sheekh diin maxay qabtaa ku diino naam arintaas ma banaano oo fiir khadca iyo khiyaano quraanka ma diinteena ma ogola diinteena kaleer way waa sahlantaa diinteena xarir ma laha marka in dad wax lagu khiyaano oo aroos been loo dhigo laba qof is qabin oo is geynin Allah waa isnikaxsanay si loo soo xambaaro waxaas dhan waa dambi way ilaahay ha laga baqo ha laga fogaado arimaas insha Allah dhinaca kale halo telefoonka TV go dhageysana qofka TV ga si gaab alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh su'aala weydiina insha Allah haye diinta maxay ka qabtaa hadda sida Soomaaliya kale madaxdeena kaleete waxyaabaha ay ku dhaqmayaan anigoo yacni qurbahan aan u soo qaxnay hooyooyinka dhibaato ee la kulmeen hooyo walba ay ooynayso kuwa Soomaaliya jooga daruurta ay ka muuqato iyo dayac ay ka muuqato anagoo wadankeena nimco haysano markaan aniga waxyaabahaas aan arko iyo dawladnimo aanan arki weligay markaan waxyaabahaas arko aan madaxda aan habaarkaas yani ani maxaan dembiga ku leeyahay naam habaarka caamka oo lagu ogol yahay qof particular ah waxaa dhihi kartaa ilaahay ugu dhaalimiinta naga qabo nin kastoo dhaalima soo galaya ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado inaad tiraahid mucaarad ama qof aska habaartida ku ogeyn xumaantiisa maxaa yeelay dacaayadihi aska bateen hadda oo nin kasta been baa laga sheegayaa waxbaa lagu soo aruurinayaa nin kasta wuxuu qowlku ku qurqurxinayaa waxaas dhan marka waa labada dhinacba labada kursiga rabtay kan ku fadhiyaba wax qof la inaa u helisid maaha laakiin inaad tiraahid ilaahay dadkan waana dulmiyan siyaasiyiinta nin kastoo dhaalim ah ilaahay wadanka ka qabo wadankan ha loo duceeyo habaarka markasta waxaa ka fiican in loo dumeeyo allahuma walli umuurana khiyaarana walaa tuwalli umuurana shiraarana habaarka waxaa ka fiican ducada markasta inaad duceysaan tira ilaahay nin qaar qabo wadanka noogu dhiib ilaahay dadka qalbigooda isjeclaysii allahuma alif bayna quluubi soomaaliyiin soomaalinta qalbigeeda isku keen saas inaad tiraahdo markasta wanaagsan laakiin hadda hal meel amartid waxaa laga yaabaa shaydaanka inuu hal mar ku tuso kaa jeceshahay oo u qabtid nin fiican inuu yahay oo isna ilaahay agtiisna ka xun aad ogeyn inaad tiraahdo kaasaa fiican kan kale habaartid oo hadhow aad naqatid qof cadaalad ka tagay marka ducada ku dadaal insha Allah dhinaca kale halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سوري وانكو سلامي. بارك الله فيك أخي. شيخ وحن كالا سو عرريا دالك توبي. واقرت.
تفضل تليفون ilaahi كله subxaana watacaala ha kaa garsiiyo sida wanaagsan ee aad hordhaca uga hadashay ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan mar labaad xagga allah ayaan kaaga rajaynaya wanaag iyo sharaf iyo karaamo جزاك الله خير. sheekh horta waa run arrintii hordhac ahayd idka yar hadli ها تي في اسك داف تليفون غير هذا horta hirtiyaan misana عدكاغ waa go'ay يا اخي hello codka waa go'ay maruu ka go'aya hello codku maruu ka go'ay يا اخي نعم sheekh min washaa هذا ku maqlaa mar laakiin hadaa ku maqlaa hada ku maqlaa sheekh internet ilaaha ka ajirsiiyo horta hordhaca sida aad uga hadashay ummadda soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed ee macnihii maalmahan ku hardamaya ummadda dhibaataysan waa sax baarak allah fiik hello hawa ku maqlaa marka sheekh wax yar haddaan dib ugu yara laabto marka hordhacaadii hore ee aad kaga hadlaysay arrimahaas horta waa runoo maalmahan waxaad malaysaa in aanan ummaddii dhibaataysaneed ee intaan soo sana macnihii qax iyo rafaadka kusoo jiray aan macnihii aanan la fiirinaynin dantoodii arrimahoodii bal wax ay ku sugan yihiin siday yihiin iyadoonan macnihii marnaba aanan midna midka kale uu macnihii ka damqanaynin ayaa waxaad u malaysaa inay meel sare u muuqan tahayo arrimahan aad u malayso kursigaa yar in la isku laynayo maalmahaana aad u malayso warumta ka go'an filan ninka miskiinka hadal fiican u jeedi ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka u saara asagan insha allah dhinaca kale halow ha halow tv-ga ha daawan akhi halo waa ku maqlaa haye asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alxamdulilah sheekh deeta xaaladaas الحمد لله waa sheekh su-aala ku weydiiray haye diiqow gabdhihii soomaalida kulli timihii ay banaysteen wadaado ka hadlaana badanaa lama arko diiqow diintaas arrintaas maxay ka qabtaa dembi weyna ku jiraan cawro waa gabadha timinteeda inay feedo masalada wadaadda ka hadlayan wadaad waa ka hadlaan wadaadada yaa la dulminin wadaadada dhibay qabaan markas mid wuxuu ku leeyahay siyaasi maxaa soo dhex geliyey ko wuxuu ku leeyahay siyaasadda may ka hadlaan ummadda may ka hadlaan wadaadada waa hadlaan xaqiiqatan ilahay miisaanka xasanaadka asi laakiin laa xayaata liman tunaadi qofka loo yeerayo oo loo wacdinayo asaga ma qusayso kuwo kaloo ka horeeya intay asaga gaarin kuwo kale ka horeeyo oo ama sheekhi hadalkiisa si u fasiraayo ama si kale samaynayo nasal allah salaamatu alcaafiya laakiin waxaad ogaataa gabdhahana way og yihiin ilaahay subxana wa tacaala gabdhaha in la amray inay tintooda eetaboolaan gabadha muslimadda ah labadeeda gacan iyo wejigeeda keliya cawreen inteeda kale cawro wey haddii madaxeeda feedo uu nabiga calayhi salatu wasalaam noo sheegay markii leed micraajka habeenkii la saaray inuu arkay gabdho cadaab xun ku jira markuu arkay la yiri waa maxay waa kuwa wuxuu yiri kaasiyaatin caariyaadka ahaa waa isku qurxistay dhar inay xirinta isku malaysa laakiin waa caariyi wey waa qaawantahay macnaha marka war gabdhaha madaxa ooshay iyo kuwa qolooyinkan fanaaniinta ah iyo meelaha oo haddana tv-ga inay soo fariistaan weli hadday magaaladii joogto keliya madaxa dadka magaaladeeda keliya arki lahaa laakiin iyadoo madaxeeda qaawan oo arooska ka boodaysa ayay tv-ga laga arkaya markaasa adduunka dhan laga fiirsanaa maalinta yom alqiyaama kuwaas dhan waa kugu markaati furaya inta ku daawatay cawradaada daawatay adigay dembigooda leedahay maxaa yeele adaa waa kugu dimbaaba xataa kii ku jira wallahi waa qurxunta gabadhan timi jilcee leedahay timi dheer leedahay qurux badana kan ku dhaha xataa qiyaamaha dembigu galay adaa lagu qura asna asagoo kiis aan wax laga dhimin man sana sunatan sayi'a uu yiri nabiga calayhi salatu wasalaam falah wisra man camala calayha adiga soo qaawisay banaanka iskeentay ayaga dadka waa ku raaxaysteen ama waa ku ammaaneen laakiin cadaabka ilaahay subxana wa tacaala waa adag yahay ilaahay ka dhaqan gabdhaha war gabdhaha is astura ilaahay subxana wa tacaala ka baqa naarta wuxuu leeyahay dumara u badan uu nabiga calayhi salatu wasalaam marka is ilaali halees ilaali waqti fitna lagu jira fitnada ilaahay naga haayo dhammaanteema qadka dhinaca kale sheekh asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh see tahay الحمد لله أخي sheekh su-aalan ku weydiinay oo ku saabsan dhinaca oo timaha jeegada sida hadday yarka ku weydiinaya ها sheekh ani timahayga sheekh dhinaca oo timaha foodde ها
sheekh dhinaca timihii way ka yar yihiin marka dhinaca jeegadana way ka badan yihiin ma garatay marka sheekh markaan dhinacan jaro dhinacan kale dhaqsay soo baxaan laakiin dhinacan kale xoogaa inay badaar igeli rabta camal ama timihii dhinacaas aad bay ugu yar yihiin ma garatay sheekh ka waran haddaa dhinacan gaabiyo dhinacan oo fooda ka waran dhinacana gaabiyo taas ka waran sheekh akhi arrintaada adiga waa ka duwanta adiga dhexda asalka waxaa waaye timaha inay geesaha ay ka soo baxaan waxaa la dhuha geesaha la gaabiya la dhuha soo ma hadda geesaha ma gaabisaa marka geesahan gaabiya ani ase ula sinti kuwa kale ha hadda asla sinti dhib male simid dhib male insha allah waxaa daran inay kala bataan keliya nacam dhinaca kale alow halo 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 ku maqlaa halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سلام بارك الله فيك سؤال بك ويدينا يا شيخ هاي ويد شيخ waxaa ku weydiiyey gabar abaan mehersaday waxay iskaga kay dhigtay gabar inan reer horena way soo lahayd sheekh markii dambe meheriye ayaa ogaaday inay reer hore soo martay way iga qarisay marka waxaan ku heshinay meherkii wixii ma igu leedahay sheekh nacam arrintaas waa kugu leedahay laakiin qaadiga u tegi kartaa haddii cuyuub ay soo baxdo cuyuubta qaaliga xukmayo markaas maharka in wax lagaaga celiyo google waa la gashay sooma adiga nacam maadaama aad la gashay iyadana xaqaagan waxbaa ka qaadatay marka qaaliga xukma arrintaasna qaaliga loo sheego oo idan lagu caddeeyo oo markaasna wax laguga xukumo waay insha allah sheekh nacam dhinaca kale halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخو waxaan diinayaa siyaasiyiin qaar markay xilka dadka ay ku dhacaan waxba waa okay waa nabad wadankii balse markii laga qaado ay waayeen waxay dadka dhahaan wax walba maaragtay way qariban yihiin wax fiican ma lahan marka xukunkoodu muxuu yahay sheekh arrintaas waa arrimaha siyaasiyiinta isticmaalan waa khayaanadaha iyo siyaasiyiinta isticmaalan wey xugud been hadday tahay qof been ma banaano xaqiiqatan ma banaano laakiin waa lamid maaragta siyaasiga markuu kursiga kuray isna wuxuu leeyahy waxaasaa qabana hadhowna ma qabana waxaa ka baxa war siyaasi waa asaga kaas waa munaafiqnimad kana sidoo kale waa nafsa shay waa marka kalama siyaasi hadal siyaasadeed diinta maxay ka qabtaa haddaad tiraahdo dhibkeeda le laakiin diinta laakan oo ballanka qaaday oo beenta ka sheegay iyo kan oo beenta dadku sheegayo oo hadda asaa sheegiisa ah labadooda diinta been bay sheegeen kadibkana diinta ma banaano iyo balan laga baxo ma banaano marka daa'iradaasi soo wada galayan kulligood insha allah dhinaca kale halow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سلام سلام بارك الله فيك الله إلهك حفظه آمين دمانتين شيخ عويدينا dadka maalin kasta oo barxadda xamara deganay dadkii waxay aadaan barxadda garoonka buul lagu ciyaaro casir waa ka taga duur waa ka taga maqrib waa ka taga sida sheekho diinta maxay ka qabtaa ma banaano fiiri kubadda in la daawado ama la ciyaaro xaraam ma aha oo wax xaarantinimo ma maro amurtu waxay kamid tahay waa lahwi iyo lacbi ay kamid tahay lahwi iyo lacbkan waxaa shardi u ah inuu fardi ku gafinaynin haddii uu fardi ku gafinayo ma banaano waxaa la yidhaha xaaraamu ligayrihi la yidhaha waxay xaaraam ku noqonaysaa markaas maadaama ay diinta ay soo gasho marka war ilaahay ka baqaan ninkan lacagta meesha ku bixinayo oo masaajidkan lacag lahayn oo la leeyahy war kaale tuko casirka ka aad oo casirka halkaas ku qaadayo waa dembaabay marka waxaan leenahay ilaahay ka baqa salaada inay farista ahaato wey wax kasta idaa ka horeyso hadday wax kastoo salaada ku kafinayn ma banaano hal xaala la baneeyey oo cunada qofka naftiisa ku yaabaa layidhi cunada markay taha cuna ka bacdi salaada hakada ka tukado laakiin xaalad kale oo ah finil iska daawana ama fadhi ku dira iska fadhiya waxaa lamid siyaasiyiinta lamida shiray ku jiraan lama tukanayo hadda waxaa ka hadlaysaa dad jahli ku jiro laga yaabo oo isbartiiba aaday siyaasiyiinta ama kuwa baarlamaanka fadhiyo kale waxaa laga yaabaa salaada inay kusoo gasho iyo salaada ay u kicin hal oo ilahay ka baqayo baxaayo inta kale waxay dhahayn warka noo wada yaa u baneeyay diinta dad muslimna nahay waxaa asalka waxaa waaye in diinta ay farista ahaato marka ilahay laga cabsado insha allah dhinaca kale halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخو waxaan ku weydiinayaa markastoo musqush arba inaan galo ana madaxayga banaan galaa waa weysa qaata marka wax dhibo ma iga imaanay
marka weys qaadka qofka soo qaawan xataa weys qaadan karaa sharti dhib ma laha insha allah micnaha madaxaygaa bannaan madax waa qaawantaa ka ujeeda cawradaada bannaan u jeeda soo ma ها markaasna dad ajaanibi la joogo aali jooga ana macaata marmar madax qaawina iska joogaa maya maya haddii dad ajaanib joogaan madax inaa ka xijaabatid wey aniga waxaa jirta suuliyan gala anoo qaawana isku ogeyn laakiin ajaanibaa joogta dee tahay madax inaad daboolatid wey maya ma joogtaan ku dhahay ayadaysa joogin nacam waa geli kartaa maya dhaab bas insha allah soo weyse qaadan kartaa marka weyse qaadid kadib dharka xiran kartaa daarti nacam dhinaca kale halo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا سؤالنا ودي. تفضل أخي ويدي أصاب كل هذا لاي. أشوف عن وديها وعندي قصة أفريقيا دي مرمرك غير وحد عضو كستم كعاوينا إني العين يتجه شلما ذو كلامته قالهم لبرنا وكلامته داو عضو كلامته كلها يعني وايد عادي يبركه هذا نشوف كده العين كتير وكلامته بالكورن ميد لما طلعت جماعة وكلامته مسجد وكلامته بريان xiriyara lagu tagaa inaan laba mar saddex maalin ka hor aad wacdo marka haddii aana jumcad dukanin oo dukaankan ka shaqeeya balka waran mase waa inaa xiran kuqasdana maya dukaanka inaa xirti shardi maa laakiin adi inaa khudbada ay kaa tegina waajib ah laba khudbad ay kaa tagta qalbigaa kuma udoobana qof dumar ugu tag laba khudbaa dhowr khudbaana dukanin masaajidna lama aadi karo 20 qof waxaa loo ogolaa 50 qofood waa inaa 4 maalin kor aa wacdaa maya haddii wixii duruufii kaa rabta dimi kuma lihid wixii duruuf ay lagu diido أو مساجد اللي حرو أما ملقلا الويرة أما أتك لك أسوء عليو أما الوجودي أنا بقول كريستو الوجودي وحاس تمكم اللي مكاس ظهرة تكون إيسا وقفك مسلم كا أو جمعة أو حتى المسافر كا قطبض وكذا عيسى نك ذو الحاجة حاجة هايسو أما حنوصا أما مساجد كتوك كرن ظهره تكون دينتين ويسري لكن أذيقو هلي كرمال لوجو تكذو تكان كاجي إنه فرنا هذا ما وفرنا كره دورة لكن وحأصل إن قف ضمر أو قطبك واجب نقطك أم عنق يرو قطبك واجب نقطك أم حر صدق هذا حق على دارت إنه كوفرنا وحرج حلقا قرنا لبس أنا حريم بس إلهي أتوب كان قلبي ومذوبانا قفك عدو كسعد أقطك أسوي تكنكر إنه كتر قطبة معها تاسوا سواء مساجد كنت كانوا ملا مساجد لا أدي قريب ما هدات مساجد بس صاحب ضرورة تعمل كستور كاك تكنيس لا بأس أنا وحنا كهلا يا قف كس أقطك يعني كهلا نعم لنا كلا السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo dadka barnaamijka daawanaya oo salaamaya. Su'aashu waxa waaye gabar ayaa rabtay inay ogaato iyada oo aan xajinin hooyadeed bay rabtaa inay ama labadooda inay xajiso. Marka ma xajisin kartaa iyadoo aan xajinin waalidkeeda ma ka bixin kartaa tikidkii wixii ay xajin lahayn. waa ka bixin kartaa. marka su'aasha intaas ay ku egtahay sheekh waa mahadsantahay insha Allah waan gaarsiinaya insha Allah jazakum Allah gaarsiin insha Allah jirka kale su'aashiisa waxa ku jirtaan filaya dadka lacag ay ka tagayaan lacagta inay ka tagana u sheegtay lacagtooda inaad dhacdid maaha aan qayaan wax ku qaadin maaha beec waxa fiican la cadeeyo wax kasta la cadeeyo hadduu ku yira adiga lacagtan oo sarafka soo harta qaada hadduu ku yira gaar way laakiin inuu adiga isdhaxmariso hadduu usba ka tagay iska qaadatid laguma ogolo diinta ma ogolo insha Allah waxaan filaya سؤاشاس أيها هيد سؤاله يقدم به وحدان قلد نفتي دي شيطانك هذا داس احنا توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.